بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا بي سي واي تي في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مرلبات بي سي واي تي في بي سي واي تي في وحا اينو ماركتاي كسو قادنينا عاوا برنامج ير oo ma garanaysaa ka hadlaya bini aadamka iyo dhaqamadooda dhaqanka ugu xun ee bini aadamku uu leeyahay ayaynu ku soo qaadanaynaa biidnillaahi alkariim al insaanu xigmad baa waxay tidhaahdaa al insaanu laa yuulad cunsuriyan qofka bini aadamkii ma dhasho isagoo cunsuri ah markuu ilmaha hooyadii uu calooshiisa ka soo baxo ee uu bannaanka u soo baxo isagoo cunsuriya ma dhasho almujtamac huwa alladii yucallimuhu alcunsuriya mujtamaca uu ku dhex nool yahay ayaa bara qofka cunsuriyadda kelmadda cunsuri waxa weeyaan qof yacni midab kala sooc wada ma garanaysaa midab kala sooc buu qofkan wadaa ama wuxuu wadaa deegaan kala sooc ama wuxuu wadaa allahuma salli calaa maxamed yacni jilib kala sooc yacni qofkanu waxaanu ku dhaqmayaa waxay tahay inuu bini aadamkii sida basasha ma garanaysaa uu midba mar tuuro ilaa uu marka ugu dambaysa isagu keligii soo hadho waxa weeye waa cunsuriyad weeyaan al insaanu qofka insaankii laa yuulad ma dhasho cunsuriyan isagoo cunsuri ah isagoo qabiiliste ah isagoo qaramiste ah qabiil baa jira qaran baa jira jilib baa jira laf baa jirta waxyaabo kala duwan baa jira marka al insaanu laa yuulad cunsuriyan almujtamacu huwa alladii yucallimuhu alcunsuriyata mujtamaca ayaa dadka bara cunsurinimada waxaa la yidhaahdaa dadka caalamka maanta ugu cunsurisan dadka caalamka oo dhan ugu cunsurisan horta waddan walba waa laga helayaa qof cunsuri ah oo marka uu ku arko diintaad haysato kugu cunsuridanaya ama qabiilka aad ka dhalatay kugu cunsuridanaya qofka diinta uu leeyahay had iyo jeer waxaa ku cunsuradeeya gaalada nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam bay waxay ku cunsuriyadeen jireen diintan uu la yimid ee ilaahay subxaana wa tacaala u soo dhiibay ayay ku cunsuriyadeen jireen ilaa ay gaadheen heer ay ka saaraan yacni halkaa raqabadda ay ka saaraan ma garanaysaa ay ka saaraan muxuu ahaa mandheer ay ka saaraan heerkaas bay gaadheen isagoo kacbada ku tukanaya waa tii inantiisu yari ay ka qaadaysay ee faatima binta rasuulillah markaa nebiga calayhi salaatu wassalaam faadimaa ka qaaday oo yar iyadoo ooyeysa oo ka xun aabaheed waxa lagu sameeyey ma garanaysaa waa markii islaamkuna cusbaa kadibna waa kii ku aamusinayay ee lahaa nebigu calayhi salaatu wassalaam waxa yacni aamus yacni amarkan diintu waxa uu geli doonaa inta uu habeenka iyo maalintu gaadhaan habeenka iyo maalintu intay gaadhaan ayay maaragtay ayuu gaadhi doonaa marka yacni midab walba oo adduunkan dadka jooga ka mid ah nebi maxamed baa loo soo diray calayhi salaatu wassalaam waddanku doonaha joogo meeshuu doonaha ku sugnaado ma garanaysaa midabku doonana ha lahaado waxaa loo soo diray nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxaa loo soo dhiibay dhambaalkii ka bilaabmayay iqra
iqra bismi rabbika alladii khalaq isaga oo ku jira ghaarul xiraa godkii uu maaragtay yacni uu ku cibaadaysan jiray isagoo aan hanuun saxa markaa haysan laakiinse yacni ta'ammul iyo ma garanaysaa waa nebinimada ka hor ma garanaysaa intaan malaggu u imanin waayo markun malagga u yimid waa markan lagu soo dejiyey iqra bismi rabbika alladii khalaq markaas ayaa nebinimadu ay u bilaabantay marka rasuulnimaduna waxay u bilaabantay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo dejiyey maxay markii lagu soo dejiyey yaa ayuha almudaththir qum fa andir ma arkaysaa markaasna waxaa u bilaabantay maxay nebinimadii baa marka rasuulnimadii baa markaana u bilaabantay marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam yacni isagoo wax badan ka hadlaya amuurtan qabyaaladda ku saabsan iyo dadku sida ay maaragtay qabyaaladda ay u isticmaalaan sida foosha xun le ay u isticmaalaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaa ka mid ah hadallo aad u fara badan buu nebigu ka sheegay wax laga soo wada geyoon karo ma aha laakiinse laba saddex midh baynu ka soo qaadan karnaa allaahuma salli calaa maxamed nebigu wuxuu inoo macneeyey oo maaragtay uu maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay inoogu soo dhiibay qur'aankaasoo caddaynaya qabyaaladdu waxay tahay qur'aanka waxaa ka mid ah aayadda qur'aanka ilaahay uu leeyahay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa yaa ayuha annaasu dad yahow dad oo dhan baa lala hadlaya innaa khalaqnaakum waxaanu idinka abuurnay min dakarin lab waa nebi aadan wa unthaa iyo dhadig baanu idinka abuurnay waa xawaa labadaas baanu idinka abuurnay wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban qaramo ayaanu idinka yeelnay qaran waa ummad dhan wa qabaa'ilan qarankii marka laga soo dego hoos looga dhaadhaco ayaa dadku markaa maxay noqonayaan qabaa'il bay noqonayaan qabaa'il ayay noqonayaan qabaa'ilkiibaa haddana sii kala baxaya oo waxay sii kala noqonayaan maxay ma garanaysaa waxay kala noqonayaan fasaa'il iyo cashaa'ir iyo camaa'ir iyo afkhaad bay kala yeelanayaan intaas bay usii kala baxayaan yacni way sii kala baxbaxayaan qarankiibaa sii kala go'aya in yar oo waliba meel bay usii go'aysaa ilaa marka dambe uu qofku keligii bannaan soo istaago isagoo keli ah ayuu soo istaagayaa bannaan waayo markii hore muxuu ahaa shucuuban ilaahay shayga muhiimadda uu siiyo muhiimadda uu leeyahay ayuu usoo kala horraysiiyaa markaa shucuubta ayaa ka horraysa wa qabaa'ilan iyo qabaa'il litacaarafuu si aad isugu garataan inna akramakum cinda allaahi atqaakum kan idinku ma garanaysaa karaamada badani dhammaanteenba qofka ugu karaamada badani cindallaahi ilaahay agtiisa maaha ka reerka tirada badan ka dhashay ma arkaysaa maaha ma garanaysaa kan qabiilka adag ka dhashay qabiilka dagaalyahankaa ka dhashay inna akramakum cindallaahi atqaakum waa kan ugu taqwada badan leh ma arkaysaa kan ugu taqwada badan leh xagga ilaahay marka dadkaasi shucuubta ah ayaa marka ugu horreysa ka muhiimsan in qabaa'il loo soo dego waayo isla marka qabaa'il loo soo dego haddana maxaa loo sii degayaa cashaa'ir jilbiyo walcamaa'ir lafa hoose walafkhaad afkhaadna waa inta ugu hooseyse ma garanaysaa
yacni dee ugu sii hoosaysa aabbaha un wixii ka sarreeya ee sida awowga ma garanaysaa labaad oo kale ayay afqaaddu noqonaysaa iyo wixii kasii hooseeya sidaasay usii daadanaysaa mar walba way sii daadanaysaa marka waxa weeyaan xataa mar bay weydiiyeen ma garanaysaa xadiiskii uu bukhaariga ku yaalay ma garanaysaa mar bay weydiiyeen saxaabadu ayu naasu akramu abu hurayra xadiiskaas soo werinaya dadka yaa ugu karaamo badan qaala wuxuu nebiguna yidhi calayhi salaatu wassalaam akramuhum cinda allahi atqaakum kan ugu karaamada badani xagga alle waxa weeyaan ma garanaysaa kan ugu taqwada badan leh waa yahay qaaluu laysa haadaa nas'aluka arrintaa kumaanaan weydiin dadka yaa ugu sharaf badan ma arkaysaa waa dee intii ay ma garanaysaa dadkan ku cusbaayeen islaamka unbay su-aalaha noocana nebiga weydiin jireen calayhi salaatu wassalaam markaa kadibna waa kii lahaa nebigu calayhi salaatu wassalaam fa akramu nnaasi haddii sida kale la eegana fa akramu nnaasi yuusufa waa nebi yuusuf baa ugu karaamo badan ugu sharaf badan nebiyullaahi waa nebi ilaahay ibnu nebiyullaahi haddana nebi ilaahay oo kalaa sii dhalay haddana ibnu khaliilillaahi ma garanaysaa dad wada taqwo la wada xidhiidha unbaa dhalay sidaasuu markaa wuxuu ku noqday isaguna maxay kan ugu karaamada badan haddana way diideenoo waxay yidhaahdeen arrintaa kumaanaan weydiinin qaaluu laysa can haada nas'aluka kumaan weydiinayna arrintaa qaala wuxuu ku yidhi facan macaadini alcarab tas'aluunii ma waxaad i weydiinaysaan yacni carabtu siday u kala ma garanaysaa u kala birlabsan tahay oo kale qaaluu nacam markaasay ku yidhahdeen haa jidkoodii markaa nebigu wuu ka leexday ila waa xigmad badan yahay nebigu calayhi salaatu wassalaam markaa wuxuu ku yidhi fa khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam kuwiina ugu akhyaarsan ma garanaysaa ugu waxgaradsan ugu ma garanaysaa aqoonta iyo xigmadda badan fi ljaahiliyati islaamnimada ka hor waxa weeyaan khiyaarukum fi lislaam iyaga ayaana ugu khiyaarsan marka la islaamo idaa faqihuu hadday diinta fahmaan idaa faqihuu hadday diinta fahmaan ma arkaysaa marka kullukum banu aadam dhammaanteenba waa kii nebigu lahaa oo kale banu aadam baa la idinka abuuray nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu salaam xadiiskii uu werinayay xudayfa kullukum banu aadam kulligiin ilmo aadam baa tihiin wa aadamu khuluqa min turaab aadamna waxaa laga abuuray ciid baa laga abuuray walayantahiyanna qowmun ha ka joogaan dadku yafkharuuna inay ku faanaan biaabaa'ihim yacni awowayaashood inay ku faanaan ow layakuunanna ahwana cala allahi min aljiclaan haddii kale ilaahay hortiisa waxay ka liidanayaan xaar walwaalka wasala allaahuma calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin cunsuriyadda dadka muslimiinta ah lagu hayo waxay ka jirtaa qarbiga waxay ka jirtaa meelo badan oo caalamka ka mid ah waxay ka jirtaa wadamo fara badan yacni waa qabyaalad iyada lafteedu waa qabyaalad in qofka diintiisa lagu dhibaateeyo waa qabyaalad weeyaan diintiisa in lagu dhibaateeyo wadamo badan baa diinta dadka lagu dhibaateeyaa waxaynu u rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala uga baryaynaa dadka muslimiinta ah ee diintooda lagu dhibayo sidaa ma garanaysaa loo dhibi jiray rasuulka ilaahay calayhi salaatu wassalaam iyo ma garanaysaa saxaabadiisii markii maka la joogay sidii ay ma garanaysaa loo dhibi jiray oo kale dadyow badan baa caalamka loogu dhibayaa ay ka mid yihiin dadka ma garanaysaa jooga dadka rohingaha loo yaqaano
waddanka Myanmar, waxaa ka mid ah oo kale reer Falastiin, waxaa ka mid ah oo kale reer Kashmir, waxaa ka mid ah oo kale ma garanaysaa meelo badan oo caalamka ka mid ah, reer Central Africa, reero badan baa ka mid ah oo dadka muslimiinta ah lagu dhibo diintooda oo lagu dhibaateeyo, weliba khaasatan hablaha. waxaan aad iyo aad maaragtay aynu ilaahay subxaana watacaala uga baryaynaa dhammaanba intaa la dhibayo ee diintooda lagu dhibayo in iyagana ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay u hiiliyo, iyagana ay maaragtay noqdaan kuwii ku sabra, dhammaanteenbana ilaahay subxaana watacaala uu inagana ina waafajiyo xaqa, iyagana uu xaqa waafajiyo. kuwan dadka dhibayana aqoon la-aan baa dadka keenaysa inay dadka dhibaane iyo jahliye. waxa weeyaan ilaahay waxaynu u baryaynaa in ilaahay iyagana soo hanuuniyo, waayo Cumar bin Khadaabba waa kii Nebi Maxamed doonayay inuu dilo oo qoorta ka soo jaro, kadibna waa kii maaragtay nin ka mid a maaragtay saxaabada oo maaragtay muslina waa kii u sheegay ee yidhi maxamed ba maxaad u aadaysaa isagoo seeftiisa sita Cumar bin Khadaab, maad u tagtid walaashaa maad u tagtid, walaashaa iyo ma garanaysaa seedigaababa ma garanaysaa raacay diintiisa. isla markiiba Cumar wuu ka laabtay, markuu ka laabtayna wuxuu soo aaday ma garanaysaa gurigii walaashii, deedna markuu u soo dhawaabuu wuxuu maqlay ma garanaysaa iyaga oo la akhrinayo qur'aan soo degay. markaa suuradihii ugu horreysay ee soo degay suuratu Daaha ayaa la akhrinayay. markaa suuratu Daaha iyadoo la akhrinayo ayuu soo galay, markaasuu yidhi maxay ahayd wixii aad ma garanaysaa la gunuusayseen aad ma garanaysaa la nuhnuhlayd, maxay akhriyeyseen? markaasay ka qariyeen. dabadeedna waa kii walaashii dhirbaaxay, ma arkaysaa? dabadeedna waa tii u caddaysay tiri war ama cirka gal ama dhulka gal, annagu muslim baanu nahay, iminkaba hortaadaanu ka caddaynayna, waxba la gaban mayno. yani walaashii Cumar bin Khadaab walaashii baa ka hor muslintay iyo seedigiis, ma arkaysaa? marka yani Cumar bin Khadaab sidaasuu ahaa, jahliga ka haystay islaamka ayaa sidaas ma garanaysaa uu qofku ku gaadhaa inta badan inuu dadka cunsuradeeyo. qofku hadduu cilmi diiniya yeeshana cunsuriyaddu way ka bacdaa, yani inta badan ee la ogyahay. marka ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inagu cidna ma cunsuradayno, cidna ma dhibaatayno, un aan wax wada qabsanno, aynu wax wada ma garanaysaa samayno un baynu nidhaahnaa. cidna macnaha kuma dhibno cidda aynu nahay ama cidda ay iyagu yihiin. ma garanaysaa xigmadduna waxa weeyaan dadka muslimiinta ah oo dhamiba inay maaragtay yani inama almu'minuuna ikhwa, mu'miniinta oo dhami waa walaalo weeyaan. marka aynu iska ilaalino qabyaaladda, aynu iska ilaalino, haddii kale ilaahay hortiisa waxaynu ka liidan karnaa, waxaynu ka liidanaynaa maxay? يعني وحا لو يقانو حار والوالكا. وهذا وبالله توفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. intaas baynu ku joojinaynaa barnaamijkii xasuusinta ma garanaysaa oo aynu ku qaadanaynay ma garanaysaa xigmadda ah al-insaanu laa yuulad cunsuriyan almujtamacu huwa alladii yucallimuhu alcunsuriyata. insaanku ma dhasho isagoo cunsuriya, laakiinse mujtamaca uu la nool yahay ayaa ka dhiga cunsuri. ilaahayna waa ka qur'aanka ayaynu kusoo khatimaynaa uu leeyahay subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لب يددك بانو إذن كأبورني، وجعلناكم شعوبا شعبية يا أمضان إذن كدقني، وقبائلا يا قبائل لتعارفوا سئاد ماركتي أو سقرتان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وآيات صدحية طبنات وكتير تمحي في سورة الحجرات. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برنامج كان قاركا وآد كلا سعودين BCY TV intaas baynu kusoo gabagabaynaynaa. wabilaahi towfiiq. haddaad nagu cusub tahay subscribe garee biidni illaahi alkariim si aad u hesho ma garanaysaa barnaamijyada soo socda haddii ilaahay idmo.
wabillahi towfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.